بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا شرفت له أنت خاصة أنت ربط إني رات الريبان كسو دواد مدشين رات الريب ولالك شاكر أخيار oo maanta ku wado mowduuc muhiim ah oo maalmihiisii la soo gaaray waa mowduuc muhiim ah maalmihiisii la soo gaaray maantay hadda muuqaalkan daawanayso maalintii ugu dambeysay ee sanadkan berrin hadduu ilaahay idmo waa maalintii sanadka miilaadiyada maalintiisa koowaad marka hadduu ilaahay idmo maanta waxaa idin wadaa mowduuc la xiriira sanadkan dhammaaday iyo mid ka bilaabanayo laba qodob oo kamid hadduu ilaahay waa afar qodob marka la isku daro waa saddex qodob iyo suubiskooda oo afar qodob noqonayso laba waxaa ku fiirinaynaa hadduu ilaahay idmo sanadkan hadeer tagay oo sii dhammaanayo ama aan ku jirno labada kaleetan waxaa ku fiirinaynaa kan soo socdo iyo sida uga faa'iidaysan lahayn hadduu ilaahay idmo marka qaar mid waxaa laga yaabaa sanadkan in uu ma arkino si dhaqso ah ku dhaafay si dhaqso ah inuu ku dhaafo qaarna waxaa laga yaabaa inay sanadka ka dheefsadeen oo macnaha ay ka faa'iideen maskixiyan iyo jir ahaanba u koreen oo mal ahaan qaarkood inay u koreen laga yaabo ayadana sidoo kaleeto halka qaarka kaleetana weli aysan ku qanacsaneen sanadkan siduu u dhaafay iyo macnaha horumar inaysan gaari horumarka inay gaari waayeen ay ku haminayeen dibidhac inuu ku yimid oo meeshay joogeen ma arkino ay weli joogaan ama gadaal uga sii degeenba marka qofka ka mid tahaba qaarka kaleeto laga yaabo inay haddeer hurdada ka kacayaan ayakana maasha allah qofka hadda hurdada ka kacaya walaalayaalow yaanan la eedin asaga wuxuu ka fiican yahay qofka weli sii hurdo oo weli aanan baraarugin marka maasha allah qofkii muuqaalkan ama muuqaalada kaleeto lamidka ah hadda soo baraarugay oo hurdada ka kacayo oo rabo riyooyinkood macnaha wuxuu intuu hurdada ku riyoonayo inuu ka rumeeyo rabo qofkaas yaa lala yaabin maasha allah qof fiican waaye hala soo dhaweeyo ma arkino muuqaaladan iyo midka kuwa lamidka ah uu ka faa'iidaystaba ayakana allah ku anfaco marka intaa qofka tahayba intaas qof oo soo sheegna qofka tahayba maanta mowduucan waa ku muhiim mowduuca waxa uu magac darnay sanad cusub iyo hadaf cusub sanad cusub iyo hadaf cusub mise sanad cusub iyo system cusub qofka dadka qaarkood macnaha hadaf la'aan haysay ama hadafka ka qaldanaay marka sanadka cusub hadaf cusub ay samaysanaan hadduu ilaahay idmo haddii hadaf aysan lahayn ama hadduu hadaf ka qaldanaa saas hadaf cusub ay ku samaysanayaan sanad cusub iyo system cusub waxaa ka wadana macnaha waxaa waaye haddii uu qofka qaarkood hadafka uu saxan yahay laakiin systemka iyo ma arkin oo ijhaadiya ka qaldan sida u soconayeen ujeedaa ka qaldan oo meel qaldan inay u socdaan laga yaabaa marka mowduuc midka u fasirinaysa adeeg ku taala haddii systemka ka qaldan yahay insha Allah systemka inaad saxda isku dayaysaa haddii hadaf la'aan ku haysay oo hadaf aadan dhiganin ama hadaf uu ka qaldanaan ayadan insha Allah hadafka inaad saxatid u fasiro marka labada qodob oo koobaad oo macnaha uu barnaamijka ku bilaabanayno waxa waaye labada qodob oo sanadkan hadeer dhamaanayo si gooni ah u fiirinaysa qodobka koobaad waxa waaye sanadkan tagay qiimeyn ku samee waa sanadkan hadeer tagay oo dhamaanayo qiimeyn ku samee maxaa qiimeynaysaa waxaa isweydiinaysaa maxaa ku hirgalay sanadkan maxaa ku hirgalay oo ku hagaagay hirgeydii iyo hagaagi waa midda labaad waxa waaye maxaa halaabay yaa ukunta waa funtuudaay maxaa fashilmay maxaa halaabay wixii hirgalay waa isweydiinaysaa wixii halaaban waa isweydiinaysaa waxaa qaldamay waxaa gaari weysay waxaa fashilka kugu yimid labadaas markii waxaa soo saddexeeyo sababtaa soo saddexeysa sabab maxaa fashilka keenay oo inaad ku fashilmatid hadafkaa gaari weysid maxaa keenay kan kaleeto inaad gaartid ma arkin oo hadafkaaga uu ku hirgalay maxaa sababa ayada laftirkeeda maasha allah sababaha fiican waxaa waaye in aad ogaatid waaye aad dhahdid maasha allah taktika fiican ay ahayd ama farsamo fiican ay ahayd oo adeegsaday ilaahay qadartiisa ka soo saasay igu suurta gashay inaan ku dhago waayo ma arkino systemkan inaan ku dhago waayo meesha fashilka uu ka yimidna ma arkino ayadan dib inaa ula xisaabtantid waa maxaa keenay isweydiisa sababahaas qadarta xagga iska dhig qadarta kadib laakiinse ma aniga ma waxaa keenay inaan meel iska fadhiistay oo waxba dadaal ah liiga waayay oo aniga hal tilaabo qaadi waayo ma arkino imtixaan 10 er haddii inta lagu soo dhiibo oo 10 maalin lagu dhaho 10 maalin kadib imtixaan lagaaga qaadaa 10kii maalin haysatay calaa maalin hal er haddaa xifdin lahayd waa baasi lahayd laakiinse 10kii maalin inta iska jiifatay maalintii imtixaanka laga qaado haddaa ku dhacday kawar oo dhahayd qadarta qorneed oo saas imtixaankii inaa ugu dhaco oo 10 jeer imtixaankii lagu celiyo 10ka jeer baa ku dhacday war maalinba hal er haddaa baran lahayd ama imtixaanka ku dhacdo hal er ka baran lahayd waa baasi lahayd laakiinse dadaal la'aantaada keentay ee qadarta keli ah ha ku marmarsiyoonin waa qofka hadduu awoodo hadduu ilaahay idmo marka ayadan inuu isweydiiyo qofka maxaa ku hirgalay maxaa ku fashilmatay sababta keentana waa maxay macnaha waxa ku hirgalay sababaha keena oo fiican waa maxay oo aniga la imaaday dadaal iyo duca miya mas wax kale tawaay
sababaha kaleetana macnaha oo fashilka keenana waa maxay aniga dadaalkii iigu waay meel ma iska jiifto mase meel kale wax ka qaldan yihiin oo jihada aan saxnayn marka qodobka koobaad kaas waa qodobka labaad u imaanayna oo ah sideen u sixi karaa qaladaadkan oo macnaha meeshii fashilka kaaga yimaado waa sheegnay kuwii wixii fiicnaa waa sii haysanaysaa laakiinse meelihii uu fashilka kaaga yimid oo kaa qaldamay sida u sixi lahayd aheedeh lagaa rabaa oo waa isweydiinaysaa markaa isweydiisid qaladkan sidee u sixi karaa waxaa kaloo isweydiinaysaa yaa igu caawin kara macnaha qof walbaba xoogaa wuxuu ku dheeryahay qof walbaba ujeedaa wuxuu ku dheeryahay wax ka baro wax ka faa'iideyso maxaa ku caawin karo yaa ku caawin karo buug maa ku caawin karo muuqaal maa ku caawin karo qof maa ku caawin karo macallin maa ku caawin karo waxay rabta ha noqotee hadduu ilaahay idmo waxaa raadisaa qofkii waxaas kugu caawin lahay ama meeshii waxaas kaa caawin lahayd hadduu ilaahay idmo caawimaadda haddaa u imaanana caawimaadda waxaa waaye adiga mar kastaba waa u baahan tahay qof dhakhtarka maxaa loo aadaa dhakhtarka waxaa loo aadaa inuu ku baaro marka koobaad wuu ku baaraa markuu ku baaro kadib muxuu sameynaa wuxuu kuu sheegaa cudurkaa qabtay wixii ku haay mujeedaa oo la xanuunsaneeda kuu sheegaa markuu kuu sheego muxuu kuu qoraa daawo kuu qoraa oo tii saddexaad daawad markuu kuu qoro kadib qorshaha daawada u qaadan laheedaa laguu sheegaa habeen iyo maalinkii ama subaxdii iyo habeenkii qaadanaysaa ama waxaa qaadanaysaa 3 waqti maalintii ama 2 waqti ama 1 waqti adi qorshihii kuu sheegaa muxuu sameeyay marka dhakhtarkii intaasuu kula wadaagi daawada inaa qaadatid in kaleeto dhakhtarka hadalkiisa inaa maqashid in kaleeto adee kuu taalaa marka dhakhaatiirtoo kaleeto macnaha saasay muhiim u tahay noloshoo laftirkeeda life coach waxa la dhahaay iyo arrimo kaleetaa jiro oo macallin ay leedahay program saasoo kaleeta ahaa bilaabay haddaad danaynaysid oo macnaha dhakhtar annakoo iska dhigayna oo macnaha xaaladan waxyaabaha meelaha ka qaldameena kow aa kula raadina meeshuu xanuunka kaa haayo 2 waxaa waaye waxaa kula raadina wixii ku caawin lahay oo wax kasta waxaa jira ma ujeedaa waxyaabo u qoran oo dad hore noo qoreen oo soo dadaaleynaya ee baaritaan ku sameeyeen qaladaadkii hore u sameeyeen inaa u samaysid lagama baahna marka dhac waa soo guurinaysaa waxay systemkii lagu sheegay hadduu ilaahay idmo adi kow wixii cilada meesha ka haysatay waa fahanay cilada markii la cadeeyay system baa lagu dhigay systemka sida u raaci lahaydna hadduu ilaahay idmo iyo qorshaheedii qofkan kuu sheegaa haddaad danaynaysid arrintaasoo kaleeto biidnillah instagramkeena iyo facebookeena iyo adduunyadeena waa taqaanaa ama gmailkan hoosa kugu qora hadduu ilaahay idmo fariin noo soo qor qiimaha waxaa waaye bilaab maadaama iska tahay qiimo macquul ah waaye ha cabsadan hadduu ilaahay idmo marka inteeda kaleetan waxaan youtube ku jiro dhan maasha allah free waaye hadduu ilaahay idmo ayakana ka faa'iideyso qodobkaas marka intaas ugu gudbaynaa oo kii labaad ahay oo qofku inuu ogaado meesha macnaha sidee wax u jiraan oo qaladaadkan sidee u sixi karaa iyo iga caawin karo qaladaadkan inaa isla saxno oo macnaha waxyaabaha adi arkayna jirto oo qofka kaleeto uu arkaayo iyo systemya aadan aqoonin oo adiga kuu sixi karo hadduu ilaahay idmo qodobka saddexaad wuxuu ku saabsan yahay labada qodob ugu dambaysa waa sanadkan cusub ay ku saabsan yihiin sanadka cusub marka maxaa waaye marka koobaad waxaa isweydiinaysaa hadaf ii qoran ma leeyahay horta hore hadaf ii qoran ma leeyahay oo macnaha hadafka inuu kuu qoran yahay laga yaabo sanadka horta agaari weyse sanadkan asaga inaa cusboonaysiisid oo hirgelis loo baahan yahay mase ma lihid hadaf haddaada hadaf lahayn hadda qoro hadaf qoro qof aan hadaf lahayn hadafkiisa ma gaara waa maya maxaa yeele awalba hadaf ma lahayn laakiinse hadaf haddaa lahaydna hadda macnaha si fiican u jeekin haddaada lahayn hadeer hadafkaaga qoro hadduu ilaahay idmo oo macnaha waxaa isweydiisaa meelahee loo baahan yahay inaa macnaha isbedel ka sameeyo ma waxaa rabtaa caafimaadka inaa isbedel ka samaysid ma waxaa rabtaa aqoonta inaa isbedel ka samaysid ma waxaa rabtaa shaqada isbedel inaa ka samaysid ma waxaa rabtaa xiriirkaaga inaa isbedel ka samaysid macnaha laga yaabo inaa ku jirto xiriir xaraan ah inaa ku jirto inaa ka baxdid waxaa laga yaabaa asxaab xun inaa leedahay oo asxaabtaas loo baahan yahay inaa ka fogaatid waxaa loo baahan yahay asxaab cusub inaa samaysatid oo maasha allah muhiim ah oo jihadan cusub kuula socoto oo noloshaadii wax iska bedeleen jihadan aaratid asxaab ku saabsan inaa samaysatid xiriirkeeda soo gelaysa ayada laftirkeeda ma waxaa rabtaa guur tan kaleeto ma waxaa rabtaa muhiimna waa meeshan caado dhaqameed inaa samaysatid cusub oo balwado xunxun aa iska goysid kuwa fiicanna aa samaysid marka qodobkaas saddexaad intaas uga bixina qodobka ugu dambeeyo oo afraad waxaa waaye qofka uu samaysto system asaga ku haboon system hedhe asaga ku haboon dadka way kala duwan yihiin qof walbaba siyaa wiilka system aa jira laga yaabo inuu doorbidaayo gabadha system kaleeto gaara ee doorbidayso qofka hooyada ah system ee doorbidaya ninka aabaha ah system kaleeto uu doorbidaa qofka ardayga ah iyo qofka shaqeeyo laba system oo kala duwan inay doorbidayaana macquul ah ayna u badan tahay hadduu ilaahay idmo
qof ma ujeedaa dabeecadaha dadkan way kala duwan yihiin qof walba system ku haboon ma arkino system kasta oo meel lagaaga sheego qof oo ku aqoonin hadaa raac is dhahdo maasha Allah inta raacid inuu ku saxmo way dhici kartaa laakiinse adi ahaantaad hadaa is aqoon system kugu saxan ma taqaanid ama waqtigaaga oo kale system ku haboon oo kale hadaadan aqoonin inuu systemki uu ka qaldamo muhiim ah marka waxa sameynaysa haduu Ilaahay idmo qorshe systemka ku haboona inaad degsataa laga rabaa kadibna aad ficil maalin la ah la imaato marka koowaad qorshe systemkaaga adi nolol maalmeedkaaga ku haboon iyo dhaqan ahaantaada iyo qofka tahay ma ujeedaa ku haboon la imaanaysa midka kale waxa waa ficil maalin la ah hadaa laga waayo waxa waay aaday u adag tahay in hadafkaaga aad gaartid marka labadaas muhiim waa midda saddexaad oo muhiimka ah waxa waa hubka qofka islaamka waxa la dhahay ducada waa hubka qofka islaamka ah uu haysto ugu weyn waxa waa ducada waa Ilaahay waa in qofka wax hirgeliyo qofka wax diidan asaga waa adiga dadaal iyo duca hadii laga helo labadaas waxa waa labada qadarta bedeli karo waa dadaal iyo duca hadaa la imaatid wax ku qoran ma ogid dad badan oo qadartay ku marmarsiyoodaan ma arkino wax ku qoran adi ma ogid laakiin sida imtixaanka hadaa ninka aad soo tilmaameen ama gabadha aad soo tilmaameen oo kale meel intuu iska fadhiisto qadartaas saas qortay inuu dhaho ma arkino marmarsiyo taas ka weyn ma jirto laakiinse haduu intuu duceysto una dadaali lahay ma arkino erayadaas uu xifdin lahay Ilaahay qadartiisa markaas asaga qore asagaana og Ilaahay iyo qadartiisa isku dhaafi lahayd laakiin adigi oo labadaba laga heli ducana laga helin dadaal laga helin ducadan muhiimada waxa waaye waxyaabaha lagu aqbalo waxa kamid ah qofku inuu wanaagsado qof wanaagsan inuu yahay oo macnaha waxyaabaha ducadiisa in la aqbalo kasoo horjeesan karo uu iska jiro waxyaabaha ducada lagu aqbalan u jeedaa oo ka ag dhawaado oo ducooyinka waxyaabaha lagu aqbalo adinka aad raadin kartiin haduu Ilaahay idmo laakiinse muhiimadu waxa waa qof wanaagsan inaad tahteeda kale inaad aamintid ducadan inuu Ilaahay ku aqbalo inaad iska duceysatid ina macquulti in kale ma ogi aad dhahdo laakiinse Ilaahay ducada marka duceysanaysid aamin inuu ku rumeyn karo oo kalsoonidaas la imaa waxa laga helo inuu Ilaahay ku rumeeyna quwadiisa uu haysto agtiisana is waxba ka ahayn tan labaad inta duceysto meel ma fariisane waa maya waxa sameynaysa dadaal la imaanaysa haduu Ilaahay idmo marka hadii laga helo duco iyo dadaal biidnillah hadafkaaga sanadka soo socdo insha Allah waa wada gaari doontaa waxa ku rajeynaa sanadkan dhamaaday Ilaahay xanuunadiisa inuu si sahal ah kugu ilowsiiyo oo calaalka iyo wax la soo dhaaf waxba ka matara laakiin qaladaadkiisa wax ka baran kartaa qaladaadkiisa heed wax ka baro oo ha ku celin mar kale ha ku celin qaladaadkii oo sanadka hore soo gashay Albert Einstein wuxuu dhahay walidu waxa waaye u dhahay qof markasto sameeyay wuxuu hore u sameyn jiray laakiin si suugayo natiijo cusub inuu soo baxdo macquul miya waa maya ani meeshan hadaa fadhiyo weligay oo meeshan oo sii fadhiyo macnaha ina meel kale istaaga macquul miya hadaa weli meeshan sii fadhiyo waa maya maxay ani ina istaaga way socdo meeshaas kale istaago laakiin anoo meeshan fadhiyo hadaa rabo ka hor meeshaas ina istaagsana macquul ma aha waalina waaye ma arkino adiga iyo midka fuustada labada ka duleesho biyaha ku dhaaminayo iyo qofka meeshiis asoo iska fadhiyo wax kale in isbedelaan rabo ama ficilada hore sameeyay wax ay isdhaamaan haba yaraatay ma jirto waxa laga yaabaa ninkaas haba ka fiicanba oo waalan xayalkaas marfuucu qalmo waa dambigiis waa la dhaaf adiga laakiinse wax badan hool badan laga rabaa meeshaadii aan joogtaa waxaan sugaysaa inay wax isbedelaan marka haduu Ilaahay idmo walaashayda qaaliga ah walaalkayga qiimaha badan afartaas qodob qaado sanadkan waa tagay oo ku dhaafay cashir ka baro sanadka soo socdana hadaf iyo qorshe u degso haduu Ilaahay idmo maalin kasta wax isku dayda inta ka rumeyn kartid inta inaad ka rumeysid wixii ku dhaafan way ku dhaafeen xataa qaarkood ma suurtagali doonaan aniga laftirkeyga hadafay ay suurtagali waaye laakiinse calaalkood waxba noo mataraay ma ujeeda cashir inaad ka baritid hore ugu socotid haduu Ilaahay idmo intaas idinkaga taga haduu Ilaahay idmo programka intii idin sheegan inta daneynaysan ayadana inay soo codsadaan diyaara u ahay dadka ina caawiyana ma sha Allah wixii aan ku caawin karo waxa waay waxyaabo aan jecelahay qofka waxyaabaha uu ku caawinayo qofka dadka iyo xogaaga nolol maalmeedkiisa haduu ka waxaysan kareetana ma sha Allah haduu iswaafajin karo insha Allah mustaqbalka fog ama mustaqbalka dhow Ilaahay idankiisa inay iswaafaqaan rajayna marka balanteen waxa idin leeyahay inta muuqaalkan kan ku xiga ku kulmeyno balanteen waa raad san reeb salaamu alaykum